shir ballaaran oo lagu dardargelinaya howlaha kaambeynka ee musharaxiinta beelaha danwadaaga ee dega gobolka saaxil ayaa maanta lagu qabtay magaalada Abdaal ee degmada Madheer oo ka tirsan gobolka saaxil waxaana shirkan loogu magac daray shirka guusha Abdaal ee mideeyay wadaaga oo dhan. Shirkan waxaa ka soo qayb galay badiba labeenta beelaha danwadaaga salaadiinta odayaasha waxgaradka iyo aqoonyahanka beelahan. Intii uu socday shirku waxay si weyn u lafagurayeen iskana xog wareysteen isla markaana si wadajir uga wada tashadeen sida ay si midaysan uga howlgali lahaayeen howlaha doorashooyinka ee fowda inagu soo haya maadaama ay beelahan u sharaxan yihiin labada musharax ee kala musharax xildhibaan Cabdirashiid Nuur Wacays oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Berbera iyo sidoo kale musharax xildhibaan Cabdilaahi Muuse Cabdi oo isaguna u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland. Haddaba saacado badan oo socday shirku kadib waxaa lagu soo gabagabeeyay isla markaana odayaashu isla qaateen inay u midoobaan doorashada sidoo kalena waxa ay halkaasi si wadajir uga ballan qaadeen in ay garab iyo gaashaanba u noqon doonaan labada musharax ee ku metelaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Ugu horreyn waxaa madashan si wadajir uga wada hadlay ugaaska guud ee beelaha danwadaaga ugaas Cabdi Cali Warsame iyo sidoo kale uqaasha iyo waxgaradka beelahan waxayna dhammaantood ay soo dhaweeyeen wadajirka iyo isku duubnaanta beelahan danwadaaga waxayna bulshada ay matelaan ka codsadeen inay si midaysan uga howlgalaan howlaha doorashooyinka isla markaana maalinta codaynta u heliyaan labada xildhibaan ee ku metelaya golayaasha qaranka. anigoo ku hadlaya afka ugaaska beelaha wadaage shirkan waxa loo qabtay waxa weeyaan waa shir abaabul daaran maxay ahayd doorashada wadaage ee ku salaysan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka sida awadeed meesha wax ka dhacay shir maqbuula oo gacmaha la isqabsaday sida awgeed cid kastoo ka maqan oo wadaaga oo ku nool dibadda iyo gudaba waxa la farayaa oo fariin culus loo dirayaa inay labada xildhibaan u codayaan una ololeeyaan taageeraan hiiliyahooba isla garab taagaan. waxaanu si wada tashiya oo ay ku jirto daacadnimo ugu qabanay shir degmada Abdaal annaga oo si wanaagsan u soo abaabulay isuna soo ururnay arrin gacmaha la isaystaana way ka dhalatay halkaa waxa laga shaaciyay guddidii shaqayn lahayd ee la shaqayn lahayd ma garanaysaa xildhibaanada sidaa daraaddeed waxaanu leenahay wadaaga meel kasta uu joogo wixii fariintayadaasi ay gaadhaa inay si cad ula shaqeeyaan xildhibaanada dibadda iyo gudaba saqiir iyo kabiirba gacmaha aynu isqabsanno iskagol xaadhanay si wanaagsan maanta maalintaa u dambaysay shirka u dambeeya la isku calool xaadhay markaa sidaa daraaddeed ha la wada shaqeeyo wixii dhibanna meelaha dhibanna ha la buuxiyo. xildhibaanada loo biqi maayo oo intaasoo ummadaba isugu tagtay laakiin waxaan rabnaa cod xooga inaynu ku soo saaro oo muuqda markaa insha allah shirkanna wuxuu daaraa is-abaabul iyo isku dubarid ayuu daaraa guddiyada ka soo baxay iyo howlaha ka soo baxayna waxaa la rabaa inay hawshu si ay tahay u qabtaan iyo sidii lagula dardaarmay. islaanta adhiga la joogta ka xoolaha dhaqanaya meelaha la jooga ka magaalada jooga caruur labada xildhibaan hil iyo hobol isla dhalinyaro iyo waayeelba waa la garab taagan yahay waxa la isu gartay sidaa in loo qaado sida lagu geeyo insha Allah taala golayaashooda beesha wadaagana isku raacday la isku garab taagan yahay de markaas aasaan wixii naga maqan iyo wixii naga fog baan ugu ducaynaynaa aanu leenahay saa isku garab taaga insha Allah taala xildhibaanada. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan Cabdirashiid Nuur Wacays oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Berbera iyo sidoo kale musharax xildhibaan Cabdilaahi Muuse Cabdi oo isaguna u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin. runtii shirkan waxaan u bixiyay shirkii guusha ee Abdaal marka shirkan waxa waa shir aad iyo aad u qiimo badan oo caqiibo leh oo maanta la isugu yimi degmada Madheer ee gobolka Saaxil aad iyo aad u mahadsan yihiin odayaasha waxgaradka cuqaasha dhalinyarada iyo suldaanka iyo ugaaska iyo hareeraha taagan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa sida qiimaha leh ee shirkan ku soo dhamaaday dhammaan meel kasta ay joogaan odayaasha iyo waxgaradkuna waan mahadnaqaynaa iyo cid kasta oo ka soo qayb gashayba shirkan wuxuu ahaa shir abaabul iyo diyaar garowgii doorashada runtii waxaan filayaa in si weyn oo wanaagsan oo mugii miisaan leh ugu diyaar garoonay doorashada. shirkan halkan maanta ka dhacay oo dulucdiisu ahayd sidii aynu howlgali lahayn aynu ugu diyaar garoobi lahayn doorashada aynu soo aadan oo ah qabanqaabadii u dambeysay wixii imika dambeeyana la howlgalayo si wacan oo wanaagsan buu inoogu hirgalay shirkaasi inooguna dhamaaday wixii imika dambeeyana waxa weeyaan waa shaqo tag baynu nahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan wadaage
meel kastuu joogo waxaanan leeyahay waxa haddii allaba ku royay waa barbarka ka baxda waa bakayla qaleen ugu dambeyn waxaa shirkan soo xidhay suldaanka guud ee beelaha danwadaaga suldaan cali saleebaan maxamed waxaa lagu soo gebagabeeyey abaabul socday oo ay beelaha danwadaaga beryahan wadeen oo lagu magacaabay gudiyadii campaignka iyo gudiyadii abaabulka ee doorashada dhammaan arrinkaas waa soo dhammaaday waxaanu ku soo dhawaaday jawi fiican oo wanaagsan oo qabuul iyo ijaaba sidaas daraaddeed dhammaan waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha danwadaage in arrinka la soo gunaanaday Abdiwali Yusuf Umar Bulsha TV